بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحان آدو سلامية أصحاب تتكوحوا لنشانك فردوس تنساني وحان لاي آد باوما هسنتهين وحان إذن كعد سنة يوا سبسكرايب تيدا مرنبا مئلا وطاينا قوض هادلين لايك توا مهم كومنتي بوالي رجلين انتا اينا قوض هادلين إنو وين علوصو إذن سوهر فريسوتو انتا إذن كعد سطي يان مايا الأوران مايا maanta insha Allah biidmi Allah barnaamijkeenu wuxuu yahay inagu markasta waxaynu nahay wacyigelin u dhaxeeya labada dhanba maalmihii u dambeeyay waxa socday hab qabaa'ilaysan qabyaaladii waxay maraysaa waa meel aad iyo aad u xun xiriyihii dawladda alanbaqana way soo dhaaftay alanbaqa waxa aan anigu mar walba jecelahay inaan dadku isdulmiin sababta oo xadiisul qudsi baa wuxuu ahaa waxaan ilaahay muxuu yiri xadiisul qudsi ku yiri wuxuu ku yiri anigu waxaan ka xaaraantinimeeyay naftayda dulmiga idinkana waxaan idinka xaaraantimeeyay waa dulmiga dulmigu marnaba adigana kuma fiicna guushaadana uma fiicna aakhiradaada uma fiicna aayahaaga dambe uma fiicna wax allaale waxa uu u fiican yahay aakhiriyo adduunka midnaba ma jirto waxa maanta ka hadli doona oo aan fiidiyoogan rabaa inaan ku soo qaato kuna wacyigeliyo gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay tahay runtii waxaan arkay Naciima Joker oo ooynaysa runtii waxay dadkii u kala qaybsameen laba qaybood labada qaybood ay u kala qaybsameen waxa weeyaan qayb Naciima Joker cadaawad hore u haysay Naciima Joker ayaabay waxay u qabeen cadaawad hore ama ehelkeeda ha ka mid noqdaan ama asxaabtii u dhaway oo mar ay isku dhaceen dabadeetana markii ay maanta social media lagu fadeexadeeyay ee lagu dhaliilay waxa soo kaakacay qoladii ay isdhaliileen horena ay isu hayeen ayaa soo kacay iyaguna cay u miisaya qolada waxaan ka oran doonaa hal kelmada aan ka oranayo waxa weeyaan waxa jiray dadka qaar oo ay iscafiyeen oo ay mar hore intay iscafiyeen haddana intay cafiskii markii show afka baa la iska cafiyay qalbigiiska ma cafiyeen haddaba cafiska wuxuu u fiican yahay runtii aakhiradaada adduunkaaga horta marnaba waa inaynu ka fakarnaa aakhirada maalinta dambe dabadeetana dadkii ma garanaysaa colaada u hayay markii inantii nincaayay ee uu aflagaadeeyay kuwii cadaawada u hayay baa soo kaakacay iyaguna ku miisaya qolada kale ay u kala qaybsameenna waxa weeyaan qolo qabaa'il dugsi mala qabyaaladi waxay dumise mooye runtii qabyaaladu dugsi iyo dugaasho midnaba ma leh qabiil haddii uu maanta wax taraayo dadkeenii 91kii iyo 92kii iyo 94kii maynaan soo marneen mar horena waan sheegay haddii maanta qabiil maanta hadduu wax inoo taraayo dad badan ayaa ku janno tagi lahaa qabiil wax allaale wuxuu kuu tarayaa ma jirto laakiin waxaa ka fiican cadaaladda walaalka haddii laga gardaran yahayna dadka ka gardaran ka qabo haddii gar laga leeyahayna qabo haddaba haddaan intaa kaga baxo dadkay u kala qaybsameen Naciima Joker cidda soo weerartay labada qolo ay markii horena cadaawadi ka dhaxaysay iyo markii oo afka cafis ka yimi laakiin aan leeyahay cafisku wuxuu ka fiican yahay ka afka ah ka uurka ah ayaa ka fiican iyo kii qabyaaladaysnaa qabiil maanta waa ka halkaa ina dhigay mar walba waan ku celinayaa qabiil maanta waa ka halkaa ina dhigay qabiil inta aad ka faraxalato inaad cilmi inaynu haysano sanadadaynu aragnay santaleerka hawadii kuwa sahashay meeraha sidka waa ka simanahay iyaguba 9 bay ku dhasheen sidiine naqda sabi dhulkoodan u soo kacayo maanta ku safaadin waaya waqti sikunku weeye saacaduhu ka sii dara ruuxay sabab ku dhaafaan u soo laaban maayaan hadda saa u fahantaan dadka iyo dalkuba saru u kacaya
intaas waa intaas ayaan odhanaya. inta qabiil laga faraxasho in qarannimo la raadiyo, walaalnimo iyo midnimo ayaa sharaf leh. islaamnimadana guul bay siisaa, gacan bay siisaa diinta islaamka. laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii la caayo iyo haddii qabiil la caayo, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidiba u dagaalami mayso. waa halka ay inaga gaadhay qabyaalada iyo qurunku meesha ugu hooseysay inaga gaadhay. waa halka inaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna laga diirin oo diintii nabi maxamed, diinteenii iyo nabigeeni maxamed sallallahu alayhi wasallam aan laga diirin. qabiilna loo soo wada kaco ilaa iyo islaantii ma garanaysaa booga loo dhigayay, tuunjiga loo dhigayay ama booga mid walba siduu u fahmayo ee sariirta saarnayd, marka ay maqasho qabiil ayay caafimaadaysaa. taasi waa taa. waxa aan la hadlayaa ragga maanta, ama inadeerkaad ha ahaato ama saaxiibkeed ha ahaato ama ehel kale ha ahaadee ee inta ay gabadh intay usoo kacaan caayaya ay afkeeda, waxaa la yidhi ceebtu waa mid lagugu tiro iyo mid aad adigu leedahay. haddaba mid iska daa tii ay lahayd oo ay u qarin lahaayeen tu kale iyagu ku biinayaan. marada cadi waxa ku bacda wasaqda lagama goyn karo. marada kale haddii ay wasaqi ku bacdo waa laga jari karaa. gabadha Soomaaliyeed waa marada, waa barta cad ee wasaqda lagu tiray. haddaba ka caayayow, adiga marka aad caayayso gabadha Soomaaliyeed adigu gabadha Soomaaliyeed aad adigu caayayso, ma kula tahay inaad wasaq iska tirtay? adiga ayaa isku biyay wasaqdii. sababtoo ah gabadhi way kula dhalatay, gabadhi way kuu dhaxday, gabadhi waad dhashay, gabadhna waad la dhalatay. halkeebaad kaga bixi? cayda aad maanta ku biisa gabadha Soomaaliyeed ee afkaagu sootii baa leeyahay, sootii gabadh oyda raggu geerida ka xigi jiray, gabadh oyda sootii raggu geerida ka xigi jiray. inay gabadhi soo oyda dhaqankeennii Soomaaliyeed, gabadhi inay oydo rag baa isku baabi'i jiray, hub baa la isku guran jiray, dhibaato badan baa ka dhici jiray. waxa Soomaali ay iskugu iman jirtay waxay ahaayeen dhaqankeennii Soomaaliyeed. gabadh xitaa xiifiniin iyo markii ay lahaa markuu gabaygii tirinayu leeyahay go-aha noo doorsha, qaar maaga maamada la farin gaabisna u dhaline, gabax lagu shakaaliyow sangihii gaabi orodkiiye, gacalnimo haddaad naga rabtaan go-aha noo doorsha. marka uu qamaan bulxan leeyahay gabadhaa gabaygaalo oo tirinayu leeyahay gabadhani basari bay noqotay, gabadhan baa basariyad noqotay ee noo bedela gabadh kale noo bedela. wixii ka dhacay waynagii ogeen. gabadh oyda sootii geerida laga xigi jiray, gabadh inay soo ilmayso oo intuu nin walaalkeed ahi caayo aan xaal lagu kala qaado dhaqankeennii Soomaaliyeed may dhicin. maantana kii cid iigu xigay baabay caayaya oo ceebteeda raadinaya, kii ila dhashay baa ceebteeda raadinaya, kii Soomaalinimo naga dhaxaysa ceebteeda raadinaya, kii waxaan kudhi jaarka aan ahayn baa ceeb. xitaa jaarka wiilka jaarkaaga ah dhaqankeennii Soomaaliyeed, jiiraanka qofka kuu ah wuxuu kuula mid ahaa sidii walaalkaayoo kale. uu kusoo dili karayay, dharbaaxu kugu soo dhufanayay. hadduu kugu arko meel xun, dharbaaxu kugu soo dhufanayay. haddii uu arkana adiga oo lagu caayayana, ninkii ku caayay geeruu ka xigi jiray, gacan buu saari jiray. walaalkaaga jiiraanku wuxuu kuu ahaa ka kula dhashay oo kale. kii jiiraankaaga ahaa iska daa, kii ehelkaaga ahaa baaba ceebtaada raadinaya. waa qiimo dhaca iyo sharaf dhaca ku yimi raggii Soomaaliyeed. rag badan oo Soomaaliyeed oo sharaf la way jiraan, ragga yaan la wada ceebayn. laakiin waxa aan la yaabanahay wuxuu hi Sheekh Mustafa oo jiray maanta social media waxa la dhageystaa inta waala labada qowlba ka xumbaynaya waxa aad u daran ragga qurbaha jooga. dhibaatada ugu daran iyo ragga dumarka caayaya ee ragga video raadinaya ee dumarka fadeexadooda xitaa tii la dhalatay ku daro ee raadinaya waa ragga qurbaha. haddaba ragga qurbaha waxaa noo cadaatay inay qaataan anti-depression kaniinka la dhaho. anti-depressionna wuxuu u baahan yahay in inta aad ku cunto hurdo fiicanna aad ku hesho, markaasuu wax kuu taraya. laakiin anti-depression intaad liqdo soo fadhiisato social mediagihii
aad caydo walaasha iyo gabadhii aad qabtay iyo tii kula dhalatay iyo tii jiiraankaaga iyo tii ehelkaaga aad iyo aad baan uga xumahay waxa aan leeyahay hal laysdaba qabto war hal laysdaba qabto waxaa la yidhi hadhuub daatay caanaha hambadaa la qaban jiray hadhuub daatay caanaha hambadaa la qaban jiray hambada haddaba ha inta la qabto bal aynu dumarkeenii soomaaliyeed taqalloocsantayna tale iyo waana siisaan tiina wanaagsanna aada ilaashataan idinkuna aada sharaftiina iyo karaamadiina fiyuus kuma jiree wuxuu ku jiraa walaashaada soomaaliyeed oo aada sharafto intaasu ku jiraa waxaan idinkaga tegayaa waryaan gabdhaha laga oohinin biliis gabadha soomaaliyeed ee aad ka ilmaysiinaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad idinku ilmadeeda tirtaan oo aada shafka u dhigataan oo aada oohinteeda idinku qarsataan waxa aan idinkaga tagaa waa walaashiinoo idin leh biliis waanadu waxay inoo tahay mid ina anfacda oo ina toosisa aakhiriya adduunkaba waanadana aynu qaadano waxaa la yidhi wax kuu sheega ma weydide wax ku siiya waad heshaa laakiin wax kuu sheega ma heshid waanada aynu meel dheer gaarsiino waa inaad leegta saartaan ood sheer garaysaan oo aada gaarsiisaan dadka ay ku socoto waxaan idinkaga taga waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu